حركة مجاهدين الشباب ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay qoryo nooca AK47 ka oo gaaraya ilaa iyo 50 qoray iyo sarkaal ay sheegeen inuu ka soo goostay ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. Xarakada Mujaahidiinta al-Shabaab ayaa sheegeen raggii qoryaha sitay ku soo biireen xarakada al-Shabaab. sarkaalkan oo sheegay lagu magacaabo Baashi Axmed Ur ayaa waxa uu sheegay inuu kamid ahaa saraakiisha ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee fadhigoodu ahaa warshadii nacnaca isla markaasna dhawaan tababar ku soo qaatay dalkaasi Djibouti. horta waxaan joognay annaga warshada nacnaca saraakiishii joogtay ayaan kamid ahayn warshada nacnaca ilaa 5 qof ayaa nooga dhimatay oo anagu iska dilay markii hubkii loo kuno qof كان السيارة هذا كيسان وهذا يمكننا يوحى سيارة هو لمده أيان أنا وشنتي قف محكمة ديسان السجيني وأنا ركرت كرجور عليه وشنتي قف أو من الجبل عهيد أو ماشى كل ما تطي ويان محكمة دودي إلى السارين ووح شرعي عيساين من كل يجينا إذا كم بمدح على يمين كرقالة يا غالي afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheekh Ali Maxamuud Raage Sheekh Ali Dheere oo isna ka hadlay goobtii hubkaasi lagu soo bandhigay ayaa waxa uu soo hadal qaaday dagaal iyo duqeymo xalay ka dhacay qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. saxaafadana wax badan ayay weydiiyeen yaa idin taageero hubkaadka halkeen ka heshaan wax badan ay weydiiyeen laakiin maanta waxaad u tihiin indhihiina qoriyii ugu dambeeyay ee asbuucan ay dhaaranayeen ilaahay waxbaan weerarayna qoriyii ay qaybiyeen oo ay siiyeen ciidamadooda ay siiyeen waa kuwa maanta hortiina yaala iyagoo la keenay xalay iyo shalay iyo darado la keenay qaarna maanta ay soo saakada yimideen maarakadii xal dhacday kadib in badan ay soo goosato ay yimideen waa kuwa aragtaa marka waxaan u hambalyeeynaa guutooyinkii mujaahidiinta ee xalayto galay nimanka gaalada ah iyo kuwa murtadiinta ah waa wada gaala laakiin gaalada asliga iyo murtadiinta xalay sida fiican u xaruujiyay haday ahaan dhinaca global haday ahaan lahayd dhinaca dabka haday ahaan lahayd aaga kaleeto guutooyinkii mujaahidiinta waxaanu leenahay barakallahu amalakum. dhinaca kale afayeenka militariga dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Master Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Kalmooy ayaa isna waxa uu ka hadlay dagaalada iyo duqeymaha xalay ka dhacay qaybo kamid ah xaafadaha Muqdisho. xaafadaha markay soo turtureen meesha aad sheegayso oo ay xabadaha ku soo turtureen ciidamada dabadeed ujeedkooda wuxuu ahaa inay madaafiicdan dhex geliyaan oo ay ku dhex qariyaan xabadaha markay dhacaan madaafiicdan ay bilaabeen taas weeye mooga xabad toos ay nimanka u imaan karto toon bay meesha joogaan hurugaysiinayaan dad bay qaldayaan ama shacab bay laayeen. Awil Abukar Maxamed TV-ga Universal magaalada Muqdisho.